ugu dambeysay barnaamijkeena toddobaadka garaad koriye qormada toddobaadkana waxaan daawada ku soo qaadanaynaa ama dhageystay muhiimadda ay waxbarashadu u leedahay dhallaanka yar aanse ku bilaabo baahinteena toddobaadka su'aashana ma xasuusataa daawada ama dhageystay jidkii waxbarasho ee carruurnimadaada muddo intee leegayaad u socon jirtay dugsiga maxaa ka mid ahaa caqabadihii aad kala kulmi jirtay jidka u dhexeeya dugsiga iyo guriga waa hubaalin mid kastoo inaga mid uu gelaya xasuus dheer si uu su-aashan uga jawaabo warbixinta kooban ee sheekada Lorenzo oo 6 jir waxay ka caawinaysaa xasuusta jidka aad u soo martay waxbarashada iyo kan ay hadda ubadkaagu u maraan. Hier auf dem Weg habe ich schon mal einen Kojoten gesehen. Da habe ich richtig Angst gehabt, dass mich beißt. Waxa uu Lorenzo leeyahay maalin ayaan halkan ku arkay aad ayaan u cabsooday waxaan ka baqay inuu cuno. Lorenzo wuxuu ku noolyahay dhul buuraley ah oo deegaanada ka baxsan dhulka ay gaadheen magaalooyinku wuxuu ka soo jeedaa qoys sabool xoolo dhaqata iyo beeraley ah waxaana uu ku noolyahay qaaradda Latin America waddanka Mexico. Der ganze Weg ist schwierig. Es gibt viele Steine. Wuxuu leeyahay aabbaha dhalay jidkan uu maray dugsigiisu waa mid dhibaatooyin badan waa wada buuro iyo haadama dheer maalin kasta waxaan ka cabsoodaa inuu ka dhaco waxaan jeclaan lahaa inaan aroor kasta u kaxeeyo dugsigiisa balse duruuftu taas ima saamaxayso oo inaan halkan ka shaqeeyo beerta saan u soo saaro wax qoyskaygu quuto. Lorenzo wuxuu maalin kasta koraa amba fantaabura dhaadheer oo dhererkooda 1 mitir dheer yahay si uu gaadho dugsiga uu wax ku barto waa dariiq dheer oo ay tahay inuu sii hayo tan iyo intuu ka gaadhayo waxbarashadiisa. Das ist der gefährlichste Teil des Wegs. Wenn ich da runterfalle, dann falle ich ganz weit. halkan ayaa ka mid ah meelaha ugu khatarta badan leh waan ka cabsoodaa inaan ka dhaco haddii aad ka dhacdo lagu arki maayo meel aad martay waan farxaa mar kasta oo halkan aan dhaafo waa jid aan ku qasbanahay inaan maalin kasta soo maro si kasta uu dhibaato badan yahay mana haysto meel kale oo aan ku bedasho hadda waxa uu korayaa qayb kale oo buurta ka mid oo dhererkeedu gaadhaya 300 mitir ka hor intii uusan goobtiisa waxbarasho gaadhin waxay buuriba u sii dhibaysaa buur kale. Ich bin froh, dass ich jetzt oben bin und es geschafft habe. Aber weiter oben... waan ku faraxsanahay inaan hadda soo dhaafay qaybihii ugu cuslaa ee buurta inkastoo ay hadheen qaybo kale dhowr jeer ayuu kolba meelo kala duwan nasiimo ku samaynayaa 6 jir ka yar si uu u awoodo inuu qaybaha kale ee buuraha u hadhan fanto amba uu awood u helo balse dhegaysti duruufta ku xeeran Lorenzo 6 jir ma aha buurahan dhaadheer ee kala gadoonshay hoygiisa iyo dugsigiisa waxa uu ka soo jeedaa qoys sabool ah oo uu awooda in maalintii waaba haddii ay helaan hal waqti ay cunno siiyaan inta uu ku jiro jidkan dheer ee rafaadka badan leh ma wato sahay markii ay gaajo qabatana ma haysto waxaan ka ahayn inuu caleenta daaqo sida xoolaha waxa uu leeyahay waxaan caleenta u cunayaa gaajo ayay haysa waxaan doonayaa inaan ka helo tamar iyo awood markale aan buurta ku fanto waxaan cunaa nooca jilicsan ee caleenta taas ayaana ka wanaagsan nooceeda adag. Ich esse die Blätter, weil ich Hunger habe. Ich suche die weichen Blätter raus. Die sind gut. waxaalad ka marakacaysa duruufaha kala duwan ee aadanaha dunida ku nooli ay u soo maraan waxbarashada 3 saacadood uu ku soo jiray buur nasasho iyo caleen daaqis wuxuu hadda kabaabiga soo saaray uu soo dhawaanaya dugsigiisa oo Lorenzo wax ku barto turtaba wajigiisa waxa laga dareemayaa farxad iyo reerayn waxa uu leeyahay waxaan ku faraxsanahay iskuulkayga iyo inaan la kulmo saaxiibada aan la dhigto dugsiga rajo ayaa u bilaabmaysa inkastoo uu jidkan dhibaatada badan la soo hayay turbo waxa uu fooda soo geliyay dugsigiisa waxa uu salaamay macallimiinta iyo tiro ka mid ah ardaydiisa waxaana uu bilaabay dhoola cadeyn iyo qaybo ka mid ah ardaydiisa uu la sheekaysto waxaad moodaa in durba uu hilmaamay jidkii dhibaatada badnaa ee uu soo maray xataa haddii uu yahay mid sugaya mar dhow markii uu dugsigu dhammaado inuu isla dub jidka uga daadego dhibaatooyinka dhagaysta dunida oo dhan loo maro si aad ubadkaaga waxbarasho uga heshaa waa kuwa kala duwan
ilmaha yaraantiisa wax bartaa waxuu ka fursad badan yahay ka aan waxba baran ilmo wax bartay oo kaliya ayaa noloshiisa tawaalidka iyo bulshada uu la nool yahayba mustaqbalka wax ka qaban kara sheekada Lawrensia waxay qayb ka tahay sheekooyinka gaagaaban ee dadkeena ku dhiirigelinayno si ubadkeena daada yar leh wax barasho loo geeyo waxaanu sidoo kale soo qaadan doonaa tusaalooyin tiro badan oo goobo fara badan kuwaas oo tusaale fiican naga tusaya sida ummadaha kale halgan ugu galaan in ubadkooda wax barto dhageyste waxaad sheekadan oo muuqaal ah iyo iyadoo qoraal ah intaba mar kale ka daalaacan kartaa shabakada arrimaha qoyska iyo dhallaanka wax ka qorta ee dhallaankorea.com markii aad booqato tan iyo sheekada toddobaadka oo ku soo qaadan doono mid tan oo kale la mid ah oo isla ku saabsan duruufaha dadyoga kala duwan ee ay u maraan si ubadkooda wax barasho u helaan waxaan ku soo qaadan doonaa sheekada gabadh yar oo ku nool wadan ku yaala galbeedka qaaradda Afrika oo iyana inooga waramaysa duruufta ay u marayso si wax barasho u gaadho tan iyo kulantideena dambe waxaan inta ku soo gabagabeynaya barnaamijkii toddobaadka ee Garaad Korea halkaad naga dhageysanaysaan waa raadiyowga iyo shabakada dhallaankorea.com waxaad sidoo kale muuqaaladeena si joogta uga daawan kartaa channeladan ku leenahay YouTube ee Dhallaan Korea iyo kan Garaad Korea labadaba midka aad doonto tan iyo kulantideena dambe nabadgelyo